diblomaasi Soomaaliyeed waxa loo magacaabay afayeenka rasmiga ah ee urur goboleedka IGAD sida laga soo xigtay warqad ka soo baxday xogayaha guud ee IGAD Workena Gabayu. Wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa wadanka Kenya ayaa waxa uu sheegayaa in Nuur Maxamuud Sheikh oo dhashay Soomaaliya loo magacaabay afayeenka cusub ee urur goboleedka IGAD. The Daily Nation ayaa xogayaha guud ee IGAD ka soo xigtay in afayeenka cusub uu karti u leeyahay dhisida xiriirka IGAD iyo ururada kale isla markaana uu xoojin doono iskaashiga dalalka ku mideysan urur goboleedka IGAD. Master Nuur Maxamuud Sheikh waxa uu muddo 30 sano ah ka soo shaqeeyay arrimaha diblomaasiyadda isagoo la taliye sare u soo noqday xafiiska IGAD u qaabilsan badda cas iyo waliba gacanka cadmeed. urur goboleedka IGAD waxa ku mideysan 8 wadan oo kala ah Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, Djibouti, South Sudan, Eritrea, Uganda iyo waliba Sudan.